ninka careysan xaaskiisa oo uu furay ayaa waxa uu 35 qofood ku dilay magaalo ku taala dalka Shiinaha. ugu yaraan 35 qof ayaa dhintay 43 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii nin 62 jir ah uu baabuur u watay uu dardarsiiyay dad badan oo ku sugnaa ama hortubnaa goob lagu ciyaaro ciyaaraha kala duwan oo ku taala magaalada dhacda koonfurta dalka Shiinaha. booliska oo ninkan magaciisa ku soo koobay Fan ayaa waxa ay sheegeen in ninkan uu si xawli ah ku soo galay isaga oo gaarigiisa wata goob ay dad badan ku jimicsanayeen. waxa ay boolisku sheegeen in ninkan ay gacanta ku soo dhigeen ka hor inta uusan ka baxsan booliska. waxay sidoo kale hadalkooda intaas ku dareen booliska Shiinaha in ninkan hadda uu gacantooda ku jiro koomana uu ku jiro laguna daweynayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaaladaasi kadib dhaawacyo ka soo gaaray qoorta iyo qaybo ka mid ah jirkiisa intii uu ku jiray weerarkan. baaritaano hordhac ah oo la sameeyay ayaa sheegaya in ninkan uu aad uga carooday uguna xumaaday in hantidiisa qayb ka mid ah la siiyay haweeney uu qabay oo uu furay. waxaana la sheegay in haweeneydii la siiyay qaybtii ugu badneyd ee hantida uu lahaa ninkan, waxa uuna ka carooday qaybtii ku soo aaday ee hantidiisa ka mid ka ahayd. dhacdadan ayaa dhacday gelinkii hore ee Isniinta waxayse warbaahinta soo gaartay gelinkii dambe ee Talaadada. weerarada ka dhaca dalka Shiinaha waxa ay soo maraan faafreeb adag oo si sahlan warbaahinta uma soo galaan, waxaana arintaasi faafreeb xoogan ku sameysa dowladda inta aanan miidiyaha la soo gelin.